dowladda kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee garqaad midib qodobada wararkan kusoo qaadan doonana saaka waxa ugu waaweyn. dowladda dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay inay go'aansatay inay bilowdo qodista shidaalka Soomaaliya taasi oo ay hore ugu dhawaaqday. madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo waliba Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi iyadoo la sheegayo in shir uu halkaas uga furmi doono. gudoomiyaha gobolka banaadir handuqa magaalada muqdisho ayaa xalay waxa uu shir gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga caasimadda oo muddooyinkii ugu dambeysayba kasoo darayay. madaxweyne xaafna waxa uu dalbaday in la joojiyo howlgallada ka soconaya dhuusamareeb kuna baaqay gogol isugu yimaado xilli isagana uu gogol uga furan tahay magaalada Gaalkacyo. iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo dalkiisa ka mamnuucaya muwaadiniin u dhashay dalalka Yurub iyo weliba Afrika. qodobadaas iyo weliba qodobo kale oo xiiso leh ayaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa saaka iyo caalamka. fadlan adaa tahay daawado ku cusub barnaamijyadeena si aad halkani ula socoto ugana ka mid noqoto subscribe star lana soco wararkii ugu dambeeya caalamka. aanu ku bilownay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu soo saari doono shidaalka xeebaha Soomaaliya ku jiro kadib casuumaad uu ka helay dalka qarniga ah ee dhaca geeska Afrika. Soomaaliya ayaana meel marisay sharci batroolka si ay u soo jiidato indhaha maalgashadayaasha shisheeye oo ay dheeraad ah oo kusoo qulqulaya garoomada tamarta ee Soomaaliya. waxayna daaha ka rogtay oo ay soo bandhigtay 15 xirmooyinkaas oo shirkadaha shidaalka doonaya saaminta shidaalka ee badda ee dalka ay u fasaxday. Turkiga ayaana kasbaday qulubta shacabka Soomaaliyeed 2011 gaar ahaan tan iyo markii ay bilaabatay inuu dalka Soomaaliya siiyo gargaar bani'aadanimo si wax loo qabto dhibaatada macluusha ee waqtiga ku dhufatay. wuxuu sidoo kalena la seexday heshiisyo dhanka tamarta iyo weliba kheyraadka ah. wadanka saliidda hodanka ku ah dhaca geeska Afrika ee Soomaaliya ayaa waxaa hadda kusoo tartamaya wadamo badan oo caalamka ka mid ah. Turkiga ayaa waxa uu ka bilaabi doonaa baarista gaaska bariga Mediterranean-ka sanadkan aanu ku jirnay 2020 kadib heshiis dhinaca badda ay u kala seexdeen dowladaha Liibiya. sidoo kalena waxa uu xataa heshiis la galay dalka Niger si uu ka fuliyo howlaha macdanta baarista iyo weliba sahminta. Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu aad u soo jiidanayay wadamada Afrika dhaca gaar ahaan wadamada uu ku tuhumsan yahay inay ku jiraan kheyraadka dabiiciga ay ka mid tahay saliidda gaaska dabiiciga ah. waxaa jira in Soomaaliya casuumta yiri Erdogan Isniintii waxayna dhaheen saliid baa ku jirto badahayga howlgallo saamin macdan ah ayaad ka wadaan Liibiya laakiin sidoo kale ma ogtihiin waad ka sameyn kartaan halkan. tan waa mid aad noogu muhiim ah. sidaad la socotiin injineerada Turkiga ayaa qayb ka qaadanaya dhismaha howlgallada kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya. wartan nasiib daro qandaraasyasha ayaa waxaa bartilmaameedsan doona kooxaha argixisada oo u arka cadow dalkooda kusoo duulay. ciidamada maxalliga ah ee amniga ee Soomaaliya ayaa wata tababar saraakiil Turki ah oo ku sugan saldhigga militariga oo Turkiga ka dhistay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. laakiin waxa uu kaloo soo jeediyay in Soomaaliya laga yaabo inay adeegsato Turkiga si barbar dhig ama tartansiin ka dhan ah kuwa ay gobolka ku xafiltamayaan ee Turkiga. Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeysay wuxuu ahaa dal aad u soo jiidanaya wadamada caalamka. Turkiga ayaana wuxuu ahaa dal muddooyinkii ugu dambeeyay aad u soo jiidanaya Soomaaliya isagoona sidoo kale Soomaaliya ka dhisay iskuulo, isbitaallo iyo weliba goobo kale. waxa uuna sidoo kale waxbarasho deeqo ah siiyay arday badan oo Soomaaliyeed oo hadda ku nool gudaha dalka Turkiga. waxa uuna sidoo kale soo jiitay ganacsatada Soomaaliyeed oo muddooyinkii ugu dambeysay iyagana guryo ka gadanayay gudaha dalkaasi ee Turkiga. dhanka kalena daawadayaal madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo waliba Puntland ayaa waxa ay isugu tageen magaalada Nairobi ee dalkan Kenya kuwaas oo si kala gaargaar u gaaray 3 maalin ee u dambeysay. safarka saddexda madaxweyne ee dowlad goboleedka ayaa la sheegay inuu isku soo aaday waxaana si kala gaargaar u soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya iyo waliba mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee ka tirsan dowladda Kenya. madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaana kala degan 3 hotel oo ku yaala magaalada Nairobi kuwaas oo si kala gaargaar u qaabilaya wakiilada beesha caalamka iyo waliba mas'uuliyiinta Soomaalida ee hotelku ku soo booqanaya. safarka madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland ayaana ku soo aaday maalmo kadib markii uu shir uga soo dhamaaday magaalada Boosaaso kana soo saareen warmurtiyeed ku saabsan xaaladda dalka. lama ogo saddexda madaxweyne dowlad goboleed ee isugu tagay Nairobi inay kulamo gaar ah la yeelan doonaan iyo waliba in kale waxaana marka laga soo tago isxufaalsiga
ka dhexeeya maamulkalada Puntland iyo weliba Jubbaland. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa la safan dowladda dhexe, mana jiro xiriir gooni ah oo uu la leeyahay labada maamul ee kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ay iskhilaafsan yihiin. walow ay wax kasta isbedeli karaan maadaama doorasho ay dalka kusoo fooleeda ayaa wararka qaar oo aan helin waxay sheegayaan in laga yaabo in saddexdan mas'uul ay kulamo la qaataan wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Nairobi, walow ilaa haddaan la ogeyn sababta ay u joogaan magaaladaasi Nairobi saddexdan mas'uul oo hal mar kulmisay. waxaana laga yaabaa la sheegayaa in kulamada ay ka dhacay magaalada Boosaaso ay keentay inay tagaan magaalada Nairobi si ay sidoo kale beesha caalamka uga dhaadhacsiiyaan arrimaha ku aadan xaaladda dalka iyo weliba khilaafka dowladda iyo weliba kuwa maamul goboleedyada, taasi oo ilaa hadda warar dheeraad aanu laga helin. gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa xalay waxa uu shir gudoomiyay shir looga hadlayay amniga, kaasoo ka qayb galay maamulka degmooyinka iyo weliba agaasimayaasha waaxyada. shirkan ayaa xalay ka dhacay xarunta gobolka banaadir iyadoo ugu horeyn looga hadlay barnaamijka loogu magac daray bulsho bile oo ah barnaamij cusub oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada iyo weliba dhiirigelinta hal-abuurka bulshada caasimada. waxaa kaloo shirka looga hadlay dardargelinta amniga magaalada Muqdisho iyo weliba nadaafadda oo muddooyinkii u dambeysay uu maamulka gobolka banaadir diiradda saaray. gudoomiyaha gobolka banaadir duqa caasimada ee Muqdisho ayaa warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta maamulka degmooyinka, isagoona kula dardaarmay inay dardargelinta ka shaqeynta horumarinta caasimada shacabkana loogu adeego si daacad ah oo ay cadaalad ku jirto. sawiro la soo qaaday ayaana la arkayay iyadoo kulankan uu ahaa kulan aad loo soo agaasimay, isla markaasna uu ahaa kulan looga hadlayay caasimada amniga caasimada ee magaalada Muqdisho. dhanka kalena madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo hadda ku sugan magaalada Gaalkacyo, isla markaasna gogol uga fidiyay dhammaanba bulshada ku nool deegaanada Galmudug, ayaa waxa uu baaq u jeediyay shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb iyo weliba doorashada. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweyne Xaaf ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka in sanadii u dambeeyayba ay fargelin qaawan ku haysay dowlad goboleedka Galmudug, taasoo uu yiri sababtay kala qaybin bulshadeed iyo weliba mid maamul. Xaaf ayaana sheegay in maamulkii lagu dhisay Dhuusamareeb uu soo wajahay burbur iyo kala tag, taasoo ahayd midii uu horay uga digay. sidoo kalena madaxda dowladda federaalka ayaa ku eedeeyay inay maasuqeen odayaashii dhaqanka Galmudug soo dhisayay, ayna magacowday guddi farsamo oo agaasimayaal ah, kuwaasoo soo saaray liiska xildhibaano isugu jira shaqaale dowladeed, darawaliinta iyo weliba ilaalada madaxda qaranka, kuwaas oo guryo ku yaala Dhuusamareeb lagu xirtay si ay madaxweyne ugu doortaan wasiir ka mid ah xukuumadda ra-iisul wasaare Kheyr ayaa lagu jiray war-saxaafadeedka ka soo baxay. waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in arrintaasi meel isla dhigo, isla markaasna loo baahan yahay si loo dhiso maamul loo dhan yahay aysan noqon doonin shirka ka soconaya magaaladaasi Dhuusamareeb mid loo wada dhan yahay. dhanka kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo in dalkiisa uu ka mamnuuco dalal horleh, kuwaas oo ka mid noqon doona dalal uu Mareykanka hore uga mamnuucay iyo weli in muwaadiniintooda ay soo galaan Mareykanka. inkastoo Trump uu xaqiijiyay in la ballaarin doono liiska, ayaa haddana warbaahinta Mareykanka waxay soo saareen ama ay ka soo warantay in dalal ku yaala qaaradda Afrika iyo weliba Yurub iyo Asia lagu dari doono liiskan. waad aragtaan waxa ka socda adduunka, dalkeena waa in uu ammaan ahaada, ayuu yiri Trump. faahfaahin dheeraada kama uusan bixinin dalalka ay saameyn doonto, balse waxa uu sheegay in liiska dhowaan la shaacin doono. hase yeeshee warbaahinta Mareykanka ayaa kusoo warantay in dalkaasi ay ka mid yihiin wadamada Belaruska, Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Niger, Sudan iyo weliba Tanzania. xayiraada haatan saaran muwaadiniinta dalalka qaar ayaa waxaa 2 sano ka hor saxiixay Trump. dalalka xanibaada la saaray 3 sano ka hor ayaa kala ah Liibiya, Iran, Soomaaliya, Suuriya, Yemen iyo koonfurta waqooyi iyo Venezuela ayaa u badan wadamo islaam ah. talaabadan iminka ayaa timid iyadoo 3 sano laga joogo markii uu Trump saxiixay xayiraadii hore. mamnuucista Trump ee dalalka islaamka u badan ayaa dhalisay buuq badan, waxaana Trump uu saxiixay go-aankaasi wax yar kadib markii xukunku la wareegay. sanadkii 2018 maxkamadda ugu sareysa Mareykanka ayaa laashay go-aanka Trump, arrintaas oo niyad-jab ku noqotay dalal badan. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Hogan ayaa war qoraal oo ay soo saartay ku sheegtay in xukuumadda Trump ay soo saari doonaan warbixin ku aadan xanibaada la saari doono dalalka qaar.
wuxuu sheegay in tallaabadaasi loogu golleeyahay sidii loogu taxadari lahaa buu yidhi ammaanka muwaadiniinta maraykanka ee ku nool gudaha dalkani maraykanka. waxa uu intaasi raaciyey in maraykanku uusan dooneyn in dalkiisa uu keensado waxa uu ugu yara argixiso iyo weliba wax walba oo khatar ku ah ammaanka maraykanka. dadka kasoo horjeeda xanimaada maraykanka uu saaray dalalkaas ayaa ku doodayay in weeraradii ugu waaweynaa ee ka dhaca maraykanka uu ka mid yahay weerarkii daaraha dhaadheer iyo weliba Boston aysan ku lug lahayn muwaadiniin u dhashay dalalka xayiraada la saaray. arrinta ku aadan Trump iyo weliba mamnuucistiisa ayaa wax badan ka bedelin amniga maraykanka, iyadoo maalmooyinkii ugu dambeeyeyba ay ka dhacayeen beegsashooyin iyo weliba weeraro ka dhacaya gudaha dalkaasi maraykanka, taasi oo la sheegayo dadka siyaasadda iyo weliba amniga falanqeeya inay tahay mid kasii daraysa ama uga sii daraysa dadka ku nool gudaha maraykanka, maadaama ay caru ka abuuri karto dadka qaar ee ku nool gudahaasi maraykanka kana soo horjeeda go-aanka madaxweyne Trump. ugu dambeyn fanaankii al-shabaabka ka mid ahaa oo afkiisa ku qirtay inuu ka mid yahay ururkaasi haddana ku xiran xarunta dhexe ee xabsiga magaalada muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa in ilaa iyo hadda wax maxkamadda lasoo taagin. walow fanaankan uu xiran yahay uun muddo maalmo un yar kadib, haddana baraha bulshada ee Facebook iyo weliba Twitterka ayaa aad waxaa looga hadlayaa arrintaasi oo keentay in fanaan uu ka mid noqdo ururkaasi al-shabaab, maadaama la ogyahay in ururkaasi intooda badan waxyaabaha ay ku dagaalamaan iyo weliba waxyaabaha kale ay ku sheegaan inay tahay caqiido. wararka qaar ayaana oo isla dhex maray ayaana sheegaya in fanaaniin kale arrintan looga shakisan yahay, maadaama ay arrintu hadda kusoo biyo shubatay dhanka fanaaniinta, taasi oo xayiraad iyo weliba dabagal ku noqon doonto fanaaniinta ku nool gudaha magaalada muqdisho. fanaaniinta saameynta ku leh iyo weliba kuwa ku dhex jira dowladda ayaa aada loola socon doonaa, iyadoona laga shakisan yahay fanaaniin qaar oo hadda magacyadooda baraha bulshada aada loo soo dhigayo, kuwaasoo lagu sheegayo in iyagana aada looga shakisan yahay inay ka mid yihiin ururkaasi, maadaama ay aada ugu dhex jiraan dowladda dhexe ee federaalka iyo weliba xarumaha dowladda ee ku leedahay gudaha magaalada muqdisho. intaas ayaanu kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena qaybtii koowaad. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.